dowladda Somaliland isagoo adeegsanaya awoodiisa sharciyeed ee ku qeexan qodobka afraad heer number 54/2012 oo tilmaamaya in banka dhexe uu mas'uul ka yahay dejinta sicirka gudaha iyo ilaalinta suuqyada sarifka lacagaha. waxa aanu qaadnay tallaabooyin lagu xakameynayo isla markaana lagu ilaalinayo deganaanshaha suuqa sarifka taasoo keentay kor u kac ku yimi qiimaha shilinka Somaliland oo sidaan hore sheegay kor u kacay 25%. taasoo laga wada dareemayo dhammaan suuqyada Jamhuuriyadda Somaliland. haddaba inkastoo sarifka doolarku toddobaadkan oo dul fadhiistay 8,000 oo shilin oo shilinka laandka ah, haddana ganacsatada waaweyn hodheelada meheradaha bakhaarada iyo retailer shops dukaamada yaryar waxay halka doolar ku dhufanayaan 10,000 oo shilinka laandka ah. waxaa iyaguna la mid ah dugsiyada gaarka loo leeyahay jaamacadaha iyo dhakhtarada. haddaba banka dhexe Jamhuuriyadda Somaliland waxa uu u arkaa in sarifka doolarka ee ku salaysan Somaliland shilling 10,000 ay dul saaran tahay ilaa 2,000 oo shilin. dulsaarka noocaasi waa xaaraan aan waafaqsanayn ganacsiga xalaasha ah iyo shariicada islaamka. sidaa awgeed banka dhexe Somaliland wuxuu cod dheer ugu baaqayaa ganacsatada iyo ciddii kale ay khuseysaba inay sarifka doolar ku saleeyaan sicirka uu suuqa ka taagan yahay oo aanay ku dhufan sicir kii uu taagnaa waqtiyo hore oo la soo dhaafay. waxa kale oo aanu si xushmad leh ugu baaqaynaa hay'adaha dawladda ee arrinkana khuseeyo inay qaadaan tallaabooyinka ku habboon ee lagu xakameynayo ganacsiga ku salaysan sarifka dulsaarka ah. daryeelka guud ee dhaqaalaha dalka iyo isu dheelitirka dhinacyada ay khuseyso ee ah kuwa shilinka ku helo income-ka iyo qolooyinka ku helo doolarka. banka dhexe Somaliland wuxuu faragelin ku soo sameyn doonaa oo suuqa soo dhex geli doonaa haddii uu shilinka Somaliland hoos uga dhaco 8,000 oo shilin. waxa kale oo aanu faragelin ku soo sameyn doonaa suuqa sarifka haddii uu shilinka Somaliland kor u dhaafo 9,000 oo shilin. taa macnaheedu waxa weeye in halka doolar sarifkiisu uu ku dhex ciyaaro 8,000 ilaa 9,000 inta u dhaxaysa. intaas ma soo faragelinayno oo waxa xukumaya suuqa baahida suuqa xukumaysa.